Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabelle ayaa shaaciyay jadwalka doorashada 11 kursi ee ugu dambeeya kuraasta deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Beledweyne. Qoraal ka soo baxay guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in 5 ilaa 6 bishan ay soo gudbin doonaan ergada, lana hubin doono kadibna la diiwaan gelin doono ergada si loo tababaro. Sidoo kale guddiga waxay sheegeen in 7 bishan la diiwaan gelin doono musharaxiinta ku tartami doona 11 kursi, halka 8 ilaa 9 bishan ay qaban doonaan doorashada kuraasta kale ah. Hob 4 uu ku fadhiyo Maxamed Xasan Ibraahim, Hob 10 uu hadda ku fadhiyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed, Hob 11 oo dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay oo ku fadhiyo wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, Hob 19 oo ku fadhido Farxiyo Muumin Cali, Hob 30 oo dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay oo ku fadhiyo Daahir Amiin Jeeso, Hob 39 oo ku fadhiso Dictoresa Marian Axmed Haruun, Hob 58 uu hadda ku fadhiyo Nuur Iidow Beyle, Hob 59 oo ku fadhiso Samiira Xasan Cabdullaahi, Hob 63 oo hadda ku fadhiyo wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre, Hob 66 oo hadda ku fadhiyo Cumar Cismaan Waasuge, 135 oo dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay oo ku fadhido Aamina Maxamed Cabdi. Maamulka Hirshabelle ayaa la filayay inuu dhawaan soo gabagabeeyo doorashada kuraasta taalo Beledweyne, kadibna uu qabto doorashada 5 kursi ee ugu harsan kuraasta taalo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Saxa Mukhtaar, SBT, Muqdisho.